agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada sayniska Soomaaliland Axmed Abakor ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay gobolada dalka Soomaaliland ka waday kulan wada tashi oo ay qayb ka tahay bulshadu isla markaasina lagaga areensanayo horumarinta waxbarashada ee gobolada dalka Soomaaliland halkani waa Gabiley waxna saaka soo gaaray gobolka Gabiley wafdi badan oo hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada sayniska Soomaaliland ugu horreyn waxa wafdiga agaasimaha guud xafiiska looga armay gobolka ku qaabilay barsaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye intaas kadibna agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada sayniska Soomaaliland iyo maamulka gobolka ee Gabiley ayaa ka qayb galay kulanka wada tashiga bulshada ee dhinaca waxbarashada waxaana halkaasi ku sugnaa uqaash salaadiinta haweenka waxgaradka maamulayaasha dugsiyada qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi lagu falanqeeyay horumarinta waxbarashada dhisidda dugsiyo cusub kordhinta tayada iyo aqoonta macallimiinta waxaana ugu halkaasi fikro iyo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay bulshada ka soo qayb gashay kulanka wada tashiga waxaana ay yiraahdeen iskuulada waxaan wasaaradda waxbarashada ka codsanayaa inay noogu daraan waxbarashadaasi firfircooni sida isboortiskii hablihii madadaalo kale u sameeyaan boqolkiiba 50 wasaaradda waxbarashadu hana siiso boqolkiiba 15 siiso dawladda hoose boqolkiiba 35 kalena shacabku ha qabsadaan tiina mustaqbalka inaad ka dhigtaan inuu ardaygu jaamacadda galo isagoo og fikirka iyo hadafka uu socdo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Xuseen maayirka magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi sidoo kale barsaabka gobolka Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye inaynu ka faa'iideysano la qaadano qorshaha layna soo hordhigi doono oo ah in gobolka la gaarsiiyo waxbarashada meeshii aanay gaadhin oo dhan in gobolada Soomaaliland bari iyo galbeedba inta xog ururin sameeyeen ee baahida jirta waxa la hayo iyo waxa maqan ay soo qorsheeyeen dabadeedna ay dadkii iyo mas'uuliyiintii gobolada iyo degmooyinka ay talo ku celiyaan si gaabka loo buuxiyo aad iyo aad baan agaasimo guud adiga iyo wasaaradda bay idinku hambalyeena dumarka ayaa aad caruurta iyo ubadka ugu dadaala waxaan leeyahay hooyooyinka cidda ay la hadlayso wasaaradda waxbarashadu waa idinka cidda ubadka waxbarashada keenayana waa idinka cidda dhaqaalaha laga doonayo inay wax qabtaana waa ragga gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada sayniska Soomaaliland oo ka mahadnaqay kulankani wada tashi ay ka soo qayb galeen bulshada gobolka Gabiley isla markaasina lagu horumarinayo waxbarashada gobolka inta badan la xantaa gobolka Gabiley waxa la yiraahdaa caasimadii uu dhow yahay madaxweynaha ka soo jeeda dhaqaale fara badan iyo xabad baa la siiyaa haddana halkan waxa nooga soo baxday boqolkiiba 46 deegaamada gobolka Gabiley aanay dugsiyo lahayn taas markaa waxay sheegaysaa baahi fara badan runtii dawladdu horumar balaaran bay ku talaabsatay sanadadii u dambeysay xidho cusub oo imika waxay noo soo kordhay wadamo runtii waddanka Taiwan oo kale oo waddan dhaqaalihiisu aad u sarreeyo wuxuu noo ballan qaaday imika heshiiskii horreeyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxbarashada ay kala seexdeen in sanadka dambe ayna siinayaan markaa scholarship badan ardaydeena Jamhuuriyadda Soomaaliland siinayaan scholarshipka markaa si cadaalad ah loogu qaybin doonaa dhammaan bulshada intaasi kadib agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada sayniska Soomaaliland barsaabka gobolka maayirka magaalada Gabiley iyo sidoo kale agaasimaha waaxda wasaaradda waxbarashada sayniska oo safarkan ku weynay agaasimaha ayaa dugsiga New Gabiley ka dhagax dhigay dugsiga barbaarinta carruurta oo ah dugsi dawliya markii ugu horeysayna laga hirgeliyay gobolka Gabiley dawladda hoose degmada Gabileyna waxay dhagax dhigaasi ka dhawaaqday inay bixinayaan gaadiidka qaadi doona carruurta haday goorno halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada agaasimaha waaxda wasaaradda iyo maayirka magaalada Gabiley maanta dugsi lagu bara carruurta barbaarinta ka horeysa iskuulka carruurta ka horeysa daada iskuulka ka horeysa hadda waxaan dhagax dhigaynaa New Gabiley KG-giisii ama qalin ababka ardayda yaryar ee 4 jir 5 jirka waana 2 fasal iyo musqulahoodii xayndaabkii xidhnaa agabkii ciyaaraha ugu jira marka alxamdulillah inta ay ka badan baan wadnaa dadaalka inaanu keejiyada iskuul kasta ka dawlad hoose ah waxaanu ballan qaadanaa gaadhiga labada fasal ee hadda aynu barbaarinta ku bilaabano ardayda gaadhiga soo guri doona ee celin doona annaga bixin doona insha Allah taala oo sharafta aynu leenahay waa way dawladnimada soo halkaasi ka hadlay barsaabka gobolka Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye iyo agaasimaha guud waxaana ay yiraahdeen joognaa iskuulka New Gabiley oo aynu dhagax dhigayno KG-gii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo gobolka aniga farxad gaar ah ay tahay maadaama aanay hore u jirin KG gobolka ku yaalay maanta waxbarashada oo dawladdu leedahay oo ay ka tahay waxbarashada asaasiguna uu KG ka yahay
dalkeennana uu hadda bilow ku yahay wasaaraduna ay si wanaagsan u wado marka macallimiin tababaran kuwa 10 iminka gelayana tababarku imika uu bilaabmaya kuwaasna waa diyaar aad iyo aad baan magarkaaga mahadnaqaynaa adna deeqdaada ku dartay adigoo horena runtii ugu suntanaa waxqabad waxbarashadana runtii wax weyn ka qabtay gudoomiyaha gobolka Mudane Cabdikariim Cusub iyo soo dhaweynaa gudoomiyaha waxbarashadu mudnaanta koowaad ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland u tahay waa yalla xaaji telefishinka qaranka Gabiley.